dad badan ayaa dhaliilaya muuqaalka halkan kaaga muuqda waa fanaan Soomaaliyeed oo halkan socda isla markaana soo galaya goob xalfad ah. wiilkan halkan ayuu ka soo baxaya, wiil kale oo halkan taagan ayuu u qabsanayaa sidii qof xaaskiisa oo kala ah, kadibna si toos ah ayuu gacanta ugu sii dhigayaa. dadka ayaana aad u dhaliilay muuqaalkan iyagu oo sheegaya in fanaankan Dayaxda Nuurshe lagu magacaabo ay aad uga shakisan yihiin isla markaana qaarka fanaan la ah oo fanaaniin ay isla yihiin ayaa dhaliilaya oo dhahaya Dayaxda Nuurshe fanaan Soomaaliyeed ma ahan ee qorshe kale ayaa meesha ku jira. haddaba wiilkani fanaan Soomaaliyeed ayaan aniga ahaan u aqaanaa, balse markii aad fiirido dhaqamadiisa isla markaana qaabka uu dhaqmayo aad u fiirido adigoo habraacaya waxyaabaha uu sameynayo aad ayaad ula yaabaysaa. hadeertan markan oo kale waa qof caadi ah, marmarka qaarna markii uu heesayo ama sidoo kale xalfadaha qaar uu joogo sida madaxda markii la joogo oo kale waa qof caadi ah, balse markan kale uu bulshada kale dhex joogo hadda sidan caadiga ah ayuu nin u qabsanaya. Dayax qaniis waay dhaaf Ronaldo waxyaabahan ku taageero ninaan ka dhigaynaa aabaha ma joogin. aabaha was very absent. maamada ku shidaal maamada hadalkeeda baratay oo ku barayna dhageyso. Ronaldo waxyaabaha aan ku taageero kubadiisa farshaxankiisa adkay warka hooyada ay soorta ku dhashay wasa jilaac dafa. Ronaldo waxyaabaha aan ku jecelahay waxaa haddii aad u fiirsato habdhaqanka wiilkan fanaanka ah mararka qaar aad ayaad ula yaabaysaa markii taageerihiisa meel iska dhigo. dad badan oo taageera hadda markii ay muuqaalkan arkeen waxa ay kala laabteen taageeridii, waxa ayna dhaheen war qofkan aan taageerayno oo aan fanaan ahaanta iyo ragnimada u taageerayno ma ahan ba qof caadi ah. muxuu yahay nin rag ah oo isku ag duubaya nin rag ah oo kale isla markaana gacanta ku dhagaya isagoo oo waliba ka shiixaynin dhaqanka iyo sidoo kale Soomaalida dhaqanka wanaagsan oo ay leedahay. haddaba fanaankan baaritaan ayay dad badan ugu laabteen, waliba qaar ay fanaaniin isla yihiin ayaa dhaliilaya sida hadda fanaankii aad soo daawateen ee WSB kaasi oo sheegaya sida Ronaldo aan ku jeclahay ayuu leeyahay. markaan Ronaldo waan jeclahay qaabka uu u labisto iyo qaabka uu u hadlo. marka fanaankani waxa uu leeyahay war qaabka uu hadlo maxaad ka rabtaa nin rag ah oo kale. Dayax anigoo saaxiib leh kaftanka markaan ka imaado Dayax ay kashka isku qabteen ku sheega. kashka ay Dayax maxay isku qabteen anigoo saaxiiba nahnay oo maanta Dayax maana wada heen dad meel wada tagaayo, dad waqti wada qaadanayo, dad meel badan isku raaco. aniga Dayax waxaan iskugu imaan jirnay xaflad goobna laga casuumo, goob aroos ka jiro oo kaliya. Dayax waa ninkii ku dhiiriday inuu aniga isoo waco. dadkan kale dhalinyarta Dayax fiiriya Dayax wuxuu sameeyay inuu aniga isoo waco oo yiraahdo Cabdullaahi kashka mi maqashaaha xilaa hurdo ka soo kacayo duhur ay tahay oo habeenkii showga aan ka imaanay ahayd. showgii Marwaan aan ka imaanay, marka showgii Marwaan oo soo dhamaaday oo aan guriga iska tagay oo aan daalnaa iska seexday duhurkii waxaan arkay koolashiisa waan ku celiyay anaa ku celiyay waa wacay markaasaan dhahay Dayax iyo waraseetaha kashka laba mid soo galo yiri saaxiib. markaasaan waxaan dhahay saaxiib, markaasuu wuxuu yiri kashkow ma tiimkaasaa tahay mise tiimkayga. sidee asagoo sheeganayo magac fanaanin nin ilbaxnimo sheeganayo maanta garaadkiis u geli karaa Cabdullaahi kashkow ama tiimkaas ama tiimkayga. jawaabtaan siyaan ku sheegaa wallaahi inaan qof iska gadaynin oo ugu billaahi uga talaahay. Dayax mi maqlayaan dhahaa Marwaan aan dhahay waa nin walaalkay, ixtiraam ayaan kula joogaa sidoo ii ixtiraama u ixtiraama. adigana nin walaalkay taa waa ku ixtiraama adna waa ixtiraamtaa. laakiin ka kashka ahaan Soomaahana dhahaa aniga tiimkaasna waa ahay tiimkaanana waa ahay. haddaa ay leedahay halkaas raac saaxiib macaane والله إركنا ما دنيا هو وكسلامة أنا هلا يا أتلاقي كتير قدامي يا وحالي أقرأ وحالي سوقري thank you فيري نغن كاس حتى قبلها يريركم النغمان تيم كي أنا صراع أما تيم كاس راع حتى قبلها يريركم النغمان وحاس
sidee nin dhanoo sheeganayo magac caasimad sheeganayo uu kugu fiiri oo nin walaalkiis ula imaan karaa waxaas dayax aniga maalintaasi ahayd maalinta aan kabaha kala qaadanay markaan runta ku sheegayo ma aragta anoo meel ka hadlaayo ma aragta anoo dhahayo dayaxa intaas isdhahnay isbadhin afkaygaan ka qabsaday waayahay kashkow arka wax yar saaxiib anaa ku siinay adag ilaa la Amerika walaal waa kaga baxayaa eeg kashka walaal dhageyso horta waxa la yiri wadaadka cilmigiisa ha qaadan amalkiisa ha qaadan cilmigiisa qaadan ayaa waa fanaan Soomaaliyeed weeye shakhsiyadiisa wuxuu yahay cidna kuma taageerto waxa lagu taageeraa waa fankiisa iyo talentigiisa iyo codkiisa iyo bulshada saameynta ku dhaxleeyay beena sheegtay qof aan shakhsiyadiisa ku qaadan weysay aniga fankiisa xaga galay shakhsiyad aniga asin dad walaalo saaxiib ahayn shakhsiyadiisa ayaa ka weysay wada waa iskaga dheeraana horta ku socday kaada adi taaba inta marka intaan dhaho aniga waxaan aaminsanahay eeg qofka bini aadanka qofna blogs kama saaro qofka dayaxdal nolosha uu blogta ku qabto waa qof munaafiqa waa qof ka daba shaqeeyay waa qof uu xun ku diidan yahay sababtoo ah dad fara badan oo waxa jira caanka oo kala hadda wuxuu soo duubay marka la yiraahdo Marwan andahe Ismaaciil Arka miyaa samada maxaa u diiday safar kaadi doorta Ismaaciil Arku kashka anay si saaxiib albar kashka aan dhamay hadalka wuxuu soo duubay caanku wuxuu soo duubay Ismaaciil Arka miyaa mise wuxuu ahaa Marwan mid buu ahaa ma xasuusto saaxiibna way blogna ma saarin marka haddii ay tahay hebel baa la socotaa blog baa ku saaraya wuxuu blog saaray caanka qofku blogta saaray waa nin uu xun ku arkay Soomaalidu inta badan markii qofkan oo kale ay arkaan isla markaana qofkan markii uu dhaqamadan oo noocan oo kala ah uu Soomaalida la soo dhaxaado inta badan waxa la yiraahdaa hormoonka dumarka ayaa ku badan oo qofka hormoonka dumarku waa uu ku badan karaa dhaqamadiisuna xoogay dhanka dumarka waa ay raacsanaan karaan isjejefida isqurxinta iyo sidoo kale aqaab dhaqanka qofka uu u dhaqmayo xooga xagga dumarka raggu waa ay ka raaci karaan mararka qaar balse uma badna hadda fanaankan Soomaaliyeed inta badan waxa uu sameeyaa dhaqamo xoogay gedisan oo aad isleedahay war qofku maxaa ka qaldan ama ka si ah shakhsiyadiisa qofku asaga iskale xor ayuuna u yahay balse markii la fiiriyo in aad nin rag ah iska dhigto aad dabacdo inaad nin rag ah iska dhigto adigoo jiljileec u dhashay waa inaad hab dhaqanka kaamirada aad joojidaa isla markaana aad sidoo qof caadi ah u dhaqantaa oo ragga kale qaabkooda aad u dhaqantaa haddaba wiilkan Soomaaliyeed waa fanaan Soomaaliyeed anagu noloshiisa kuma xumin hore u socdo ayaanu leenahay balse dad badan ayaa dhaliilayay bariyihii ugu dambeeyay oo muuqaaladiisa aad u soo qaadanayay channelkan subscribe sar mahadsanid